aniga nin oday aan la shaqeynay oo siyaasiyiinta kamid ah xilmaha la raadiyo la kaambin gareey la kaambin gareenayo maalmaha kamid ah waxa u soconayay Dhuusamareeb elboorka waxaan joogay Muqdisho nin oday oo adeerkiyo ninkaas xilbaanka u kaambin gareey abtigiisa soo wacay ayuu xaaladda ka xamda fiican wadana Dhuusamareeb oo socdaayo elboorka Muqdisho aan joogaayo ninka odaga ha u kaambin gareenayaan ayre markaas wuxuu yiri hadal cajiib wuxuu yiri ninkaas oo kaambin gareynayso abtigiis aan ahay niyo ma iska dhaaftid ninkaas ana ku inta beelay oo kansar igu dhacay oo tiriibka hadda uu gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare uu ahaa oo hadda uu qaadanayo aan la soo shaqeeyo soo kaambin gareey cadaalad tagay oo kursiga markuu soo qaadanayo oo la tartamay ninkaas niyo ana ku inta beelay adeero gacali ma iska dhaaftid oo igu la taliyo waxaan ku yiri adeer waa ma santahay aan iska dhaafay ii sheeg waxa jiro ninkan wala shaqo saaxiibanahay waxa jira ii sheeg say wax jira infaansi wuxuu yiri waxa ku yiri iska dhaankaas iska dhaafo asaaqada meelka Allah kaaga saalo oo aan ku duceeyo adeerna oo yahay ninka macnaha weela talanaya mugta waxaan ku yiri adeer waa ma santahay ujeedka warkaaga ii sheeg aan ku yiri wuxuu yiri ninkaas la shaqeynaysid أنا لا شقي وسكان بنجري على لتجي وسهيلية كرسي وصار حلا حلا عجيب كرامة مثلا أي شيء وين كده بقي وبقى تاريخ الهستورية كرسي على صحيح ولا صح قاضي أنت دجال كجرني أو كان بنجري هاي كان سر كذي جوري أكون عنك هذا عذرها وإنك سبتي كيسا كو كان بنجري أبتويه وحابتيه إنك هذا أبتيه كان سر كذي جوري أكون عنك وحاكل أكون عندي هنا وبيله حاولوا يمد نكي وسكان بنجري وصار دنتي أو قدامك وين كأكل كسرة ويم niyahow abtiyo xaaladda ay ku lashahay dagaalkii aan galnay jihaadka ku soo guulaysanay ana ku inda beelay kansarna igu dhacay waxaan ka rabaa inaa iga caawisid ka rabaa barnaamij caafimaad oo dibadda iga caawisan ka rabaa waa yahay oo dhahay aan isku soo laabano ka bacdi ninkii waa u gooyay ninkii u gooyna amta abtigiis la shaqeeyo oo dartas oo xanuunsan markii u gooyay ilaahay hadda ninkii waa ii gooyay dhahay واسكت صبر براي جرمال كوت قاعد نيك وعقبات قبا عايزين شيء أمريكا نيكي ساسها أو أسوهيلي أو أسوه الجميع ساسو قاله حرام أمريكا إنا عايزين شيء أو أن ربع هجاميه قفك سياسي جا هالدورك قفك هالدورك أو لسه الله شقيه وحقه يقول له احترامه حق مريو حق دوره وحق له يقول له marka waxyaalaha cajiibka waxay tahay oo ninka ninkaas ii sheegay aniga ma qaadan maxaan la moogtaa nin maxalli dhalinyaro oo meel cad ah dahay ninkan xogaa warniyo ninka adeer ninkaas adeer taladiisa ma qaadan waxaan rabaa marka in sheegay taladaas maanta aan qaado waayay maanta 4 sano ka bacdi ana ii qararat waxay noqotay qaar waxaan rabaa marka halkan aan rabaa raaligelin ka siiyo ninka odaga maanta la taliyo taladiisa aan qaado waayay oo adeerkii aan raaligelin halkaas ka siinaya adeer raal maqalna yahay hada maanta aan talada qaadan lahaa sida maanta oo inda beelay macnuuyo maanta inda beelay macnuuyo inda beelka macnuuyo maanta igu dhacayo ma dhaceen hada talada qaadan lahaa waxaan kaloo rabaa inaan aan raaligelin siiyo madaxweynaha galmudug hadda joogo Axmed Cabdi Kaariye oo aan kursi ka doonan ninka la shaqeeyahay oo noo soo diido la dagaalay waxaan rabaa halka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye waxaan madaxweyne raal noqo intii aan ninkaas garab gacan u hayo oo la dagaalnay waxaan isleeyahay meel badan ka fiirinaysay anigu waa iska ra'yi gaabnaaye raaligelin ka siinaya intaan kula dagaalo anigaas ma kursi u sii weysaan kula dagaal waxaan kala rabaa inaan raaligelin siiyo bulshada Maxamed Cabdi iyo bulshada reer Xaji Salaaman iyo dhalinyarada halkan fadhiyo reer Xaji Salaaman intaan ninkaas garab gacan u hayo aan dhahay qofkii xaqii soo mara aan isqabanin oo raaligelin siinaya waxaan leeyahay hortaraal noqdo boqolkiiba boqol waxaan kala rabaa inaan raaligelin siiyo naftayda oo aan waqti qaali iska lumiyo aan rabaa raaligelin siiyo waxaan kaloo maqta cajiib oo aan rabaa inaan waxa history ay ku sheegayo horta waa inaan fahantaan dadka lala shaqeynayo dadka siyaasiyiinta noocaas waa in abtigiisii la shaqeeyay la dhintay usoo jiftay geedii hoosta soo jiftay in maanta uu markuu xanuunsado uu ka dareysto waxyaalaha cajiibka waa